biade yu biade jagadut lingo mo meu wai ma kya nyang na wai ken gong cha wai ken a chai wai da kano ye ba gong an kan tang di da ga te la kon ma kya ga yo kan up tang di de wa na bu ajong na gan kya bu cha ngoi hayya gulungratun hayya gulungratun nuk ma lo ton ma di a abe kan gini abe mun chiwirgo na ma kon wudi da kila dube we to na yok ku akil ku ran un ma ko chiwirgo qabiilka dinka ee degan labada Suudaan waa bulsho reer guuraaya oo deegaan ku ah gobolada kala Bahrul Ghazal, Jongooli, qaybo kamid ah koonfurta Kordofaan iyo Niilka Sare. Badankooduna waa dad beeraha iyo xoolahaba ka shaqeysta. Qiyaastiina tiradoodu waxay gaadhaysaa ilaa 4 milyan iyo badh. Haddaba barnaamijkeennan waxaynu ku dahaqaadaynaa dhaqamada nololeed ee qabiilkaasi inaga oo xoga ka helaynaa qaybaha kala duwan ee bulshadaasi ka kooban tahay. inta aynu la joogno qoysaskan ka tirsan qabiilka Tinka waxa inoo wehelin doona oo inoo sharaxi doona Maduud Miyawi oo ka mid ah qabiilkaasi ahna nin xoolo dhaqata oo beeraley ah. وواجب إن سدك أول سنة الله محايا لي تقصية يدردها هي سأذك دباتين يا الله حول لي ذيك لوي حيامين إنه وين ضحن هذا الجد وحن أباهناي إنه ما أنت أصعد على الميل أو إنه لودين الصوت عشانه تاني والله إرمانيت جروتشوك تاعي تاسو عروت الله وأنا إنه كتحدرنا إنه الله جيسها كجرانه caanaha waxaanu u lisaynaa carruurta yaryar kadib marka aanu maallo lo'da waxaanu u didinaynaa dhanka buuraha si aanu u awoodno inaannu si sahlan ugu xidhno samada haddase lo'da waanu daajinaynaa وكان مركله مستر مدوت ميوين oo inoo sharaxaya sida ay nolosha qoysku ugu xiran tahay looda ay dhaqdaan qabiilkaasi diinka qof kasta oo qoyska kamid ah waxa loo gaar yeelaa sac kamid ah looda guri joogta ah waxaanu haysanaa laba nooc oo looda ah waana looda ay yaryar ku daaqiyeen iyo looda guri joogta ah oo la maalo looda guri joogta ah waxa la sax haweenka
marka ay gabadhu caanaha soo diyaariso waxay siinaysaa carruurta iyo ciddii kale ee guriga joogta taasi waa shaqada gabadha ee guriga dhexdiisa gabadhu waxay kaloo u xilsaaran tahay inay xilligaa diyaariso cuntada marka ay wax waliba dhammaadaan waxaanu mar kale isu diyaarinaynaa maalin cusub iyo shaqo hor leh markaynu eegno hooyaday oo ah carruurta ayeedeed shaqadeedu waa tarbiyadda carruurta iyo xanaanayntooda markaanu maqannahay ayeeyadu waxay ilaalisaa oo xanaanaysaa carruurta iyadoo ka digtoon in aanay ka fogaanin guriga agagaarkiisa waxaana suuragala inay ayeeyadu mararka qaarkood carruurta ka caawiso waxbeerashada dhankeedana hooyada dhashay master maduud ayaa xog waxa ay inaga siinaysaa shaqada iyo howl maalmeedka islaanta ayeeyada ah ee qoyska ugu weyn waagii hore noloshu waxay ahayd mid wanaagsan laakiin xilligani noloshu waxay noqotay mid adag gaar ahaan islaan waayeelah oo gabowday sidayda oo kale xilligii hore ninkiina dhalay waxa yarad loo siin jiray tiro la isla ogyahay oo lo ah anigu waxaa layga guursaday 2 hablood oo aan dhalay oo mid ka mid ah saygeedii u raacday dhul fog inantii labaadna way dhimatay waxayna igaga tagtay naxdin weyn keligay itaaluma hayo shaqada guriga waana arrinta noloshayda ka dhigtay mid adag islaanta ayeeyadayhi guriga ma dhaafto wuxuuna talooyin siinaa qoyska cusub waxayna ka caawisaa dhibaatooyinka soo wajaha waxayna ahmiyadda siisaa carruurta marka ay waalidkood ka maqan yihiin iyadoo uga sheekaysa qisooyin ay islaantu ka dhaxashay awowyaasheed qisooyinkaasi oo ah kuwo mudan in lagu cibaaro qaato gabadha yar ee guriga leh waxaa u taalla hawl badan oo ay qabanayso iyadoo diyaarinayso soorta budada ah mooyahana ku tumaysa Aben cái đồng cả băng lúc đuổi, ai bảo cái lùi à con cân bị thục. Âu đây, hả? inakeen haddaba waynu daahnay kani waa fuulka suudaaniga waxaan ka soo fujinayaa dhulka kadibna waan nadiifinayaa waxaan u daynayaa xaaskayga si ay gurigii ugu qaado markaan dhoobada ka daadiyo halkan iska dhig waxaan soo qaadanayaa kursi aan kor ugu fuulo culayskeeda in badan ha soo wada qaad waa inaan si adag u xidhaa waxaan rajaynayaa inaanu soo dhicin
أين ريل تكين تيك بتابع shaqada rasmiga ah ee ninka iyo mas'uuliyadiisa koowaad waa beeraha iyo wixii dheeraad ah ee soo raaca gabadhuna waxay ninkeeda ka caawinaysaa shaqada beerta markay shaqadeeda guriga banaankiisa ka soo dhamayso waxay ku noqonaysaa aqalka si ay cuntada ugu kariso reerka waxay kaloo lisaysaa lo'da waxayna ka furaysaa dabarka si uu ninku u daaqigeeyo ninku marka uu daajinta lo'da ka soo noqdo waxa uu xilxirayaa lo'da gurijoogta ah oo ah mid u gaara quudinta carruurta si aanay lo'daasi u daaqin beeraha haddaynu dib ugu noqonno shaqada gabadha guriga leh waxaa ka mid a diyaarinta cuntada waa in guriga lagu soo wada noqdaa iyadoo gabadhu cuntaysiinaysa carruurteedii oo xanaanaynaysa wax kasta oo cuntada la xidhiidha waa mas-uuliyadda gabadha haddii ay yaraato cuntada kaydka ah waa mas-uuliyadda ninka inuu raadiyo cunto cuntada ayuu raadinayaa xitaa hadday tahay meel aad u fog midhaha beeraha ayaa cunto u ah dadka lo'dana waxaa la siiyaa balka iyo xashiishka kale sida buushaha haddii aanu dhib kala kulanno sidii aanu lo'da uga ilaalin lahayn inay galaan beeraha waxaa waajib ah inaanu u hayaanno meel durugsan ninka ayaa midhuhu markay soo go'ayaan ka ilaaliya shimbiraha kuwaasi waa inta badan howlaha ninka iyo xaaskiisa gabadhu waa inay soo goysaa sabuulka iyo midhaha kale waayo waa shaqadeeda waxay geynaysaa daaradda guriga si ay ugu farashto oo ugu shaandhayso kadibna waxay ku cabbaynaysaa kiishashka si aniga oo ninkii aya aanu qaado oo ugu raseeyo meeshii loogu talagalay taasina waa dhaqamadayada haddaanu nahay qabiilka diinka thực dốc ở qua nhị một cái thơ cái đĩa dọc cho ba nhận mà đi thấy nó tàn mùi quá đi Gue chặt kok, gue chặt kok. Cái gue dia jam adi ben, un riêng thì gue un ba, gue chơi điên thuốc cả mà đi, mà gue chặt. Nala ben ya, cả gue gặp bơ bá parak bela tôi, gue ra non tiếc, đong bài belo pur, đong cái gai ben, mà cái lô mày, din cái lô.
noloshayadu waxay ku xidhan tahay looda waxaanuna ku soo tiirsanayn muddo dheer waxaana aanu xoolaha u raacnaa si aanu caanaha looda u cabno magaalada carruurta waxaa la siiyaa shaah ama wuxuu dhigma shaaha halkana caanaha looda ayaa la siiyaa oo lagu canqariyaa carruurta saca ayaa ah ka ku caawinaya markaad guurdoon noqoto looda ayaad ku bixinaysaa meherka iyo yaradka waana mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee loodu noo leedahay xagga daaqsinka waxaanu 15 cishaba degnaa meel cusub sidaasaanu u guurguurnaa ilaa laga baxayo xilliga qaboobaha sababta aan u guurguuraynaana waa inay loodu hesho daaq ku filan si aanu caano ugu maalno caadiyan markay dhalinyaradu soo gaadhaan dhuldaaqsimeed cusub waxay sameeyaan ciyaaro iyo dabaaldegyo qof kasta oo ka mas'uula fadhi lo'a waxa uu ka qayb qaadanayaa xafladaynta haddii aad ciyaaraha ku badisana dadka ayaa kaa farxinaya marka aad badiso waa inaad gowracdaa dibi looda ka mid ah si ay hilibkiisa dhalinyaradu u cunaan arrimahaas oo dhami waa dhaqamadayada haddaannu nahay qabiilka diinka
noloshayadu waxay ku xidhan tahay looda waxaanuna ku soo tiirsanayn muddo dheer waxaana aanu xoolaha u raacnaa si aanu caanaha looda u cabno magaalada carruurta waxaa la siiyaa shaah ama wuxuu dhigma shaaha halkana caanaha looda ayaa la siiyaa oo lagu canqariyaa carruurta saca ayaa ah ka ku caawinaya markaad guurdoon noqoto looda ayaad ku bixinaysaa meherka iyo yaradka waana mid ka mid a faa'iidooyinka ugu waaweyn ee loodu noo leedahay xagga daaqsinka waxaannu 15 cishaba degnaa meel cusub sidaasaannu u guurguurnaa ilaa laga baxayo xilliga qaboobaha sababta aan u guurguuraynaana waa inay loodu hesho daaq ku filan si aannu caana ugu maallo caadiyan markay dhallinyaradu soo gaadhaan dhuldaaqsimeed cusub waxay sameeyaan ciyaaro iyo dabaaldegyo qof kasta oo ka mas-uula fadhi lo'a waxa uu ka qayb qaadanayaa xafladaynta haddii aad ciyaaraha ku badisana dadka ayaa kaa farxinaya marka aad badiso waa inaad gowracdaa dibi looda ka mid a si ay hilibkiisa dhallinyaradu u cunaan arrimahaas oo dhammi waa dhaqamadayada haddaannu nahay qabiilka diinka
gaga tagtay naxdin weyn keligay itaaluma hayo shaqada guriga waana arinta noloshayda ka dhigtay mid adag islaanta ayayadayhi guriga ma dhaafto wuxuuna talooyin siinaa qoyska cusub waxayna ka caawisaa dhibaatooyinka soo wajaha waxayna ahmiyadda siisaa caruurta marka ay waalidkood ka maqan yihiin iyadoo uga sheekaysa qisooyin ay islaantu ka dhaxashay awowyaasheed qisooyinkaasi oo ah kuwo mudan in lagu cibaaro qaato gabadha yaree guriga leh waxaa u taalla howl badan oo ay qabanayso iyadoo diyaarinayso soorta budada ah mooyahana ku tumaysa Aben cái đồng cá băng lúc đuổi, ai bảo cái lôi áo con cân bị thục. Âu đây, hả? inakeen haddaba waynu daahnay kani waa fuulka suudaaniga waxaan ka soo fujinayaa dhulka kadibna waan nadiifinayaa waxaan u daynayaa xaaskayga si ay gurigii ugu qaado markaan dhoobada ka daadiyo halkan iska dhig waxaan soo qaadanayaa kursi aan kor ugu fuulo culayskeeda in badan ha soo wada qaad waa inaan si adag u xidhaa waxaan rajaynayaa inaanu soo dhicin
shaqada rasmiga ah ee ninka iyo mas'uuliyadiisa koowaad waa beeraha iyo wixii dheeraad ah ee soo raaca gabadhuna waxay ninkeeda ka caawinaysaa shaqada beerta markay shaqadeeda guriga banaankiisa ka soo dhamayso waxay ku noqonaysaa aqalka si ay cuntada ugu kariso reerka waxay kaloo lisaysaa lo'da waxayna ka furaysaa dabarka si uu ninku u daaqigeeyo ninku marka uu daajinta lo'da ka soo noqdo waxa uu xidhxidhayaa lo'da gurijoogta ah oo ah mid u gaara quudinta carruurta si aanay lo'daas Wai macam yang na wai kergong jauh kena jai. Wai dah kanu dia bagungan kan. Tang dia dah terla kon macam yang kena. Tang dia dah na buat. Ajau na gan kerja bucang oi. Hayya gulung ratun, hayya gulung ratun. Nuk malwatan madia. Agak kan gini, agak kan Kana ciwirku, nana makon. Udah dah kila dube, gue betul yuk. Gua kilkuran. Unma kwaci baru. qabiilka dinka ee degan labada Suudaan waa bulsho reer guuraaya oo deegaan ku ah gobolada kala Bahrul Ghazal, Jungoli, qaybo kamid ah koonfurta Kordofaan iyo Niilka sare. Badankooduna waa dad beeraha iyo xoolahaba ka shaqeysta. Qiyaastiina tiradoodu waxay gaadhaysaa ilaa 4 milyan iyo badh. Haddaba barnaamijkeennan waxaynu ku dahaqaadaynaa dhaqamada nololeed ee qabiilkaasi inaga oo xoga ka helaynaa qaybaha kala duwan ee bulshadaasi ka kooban tahay. inta aynu la joogno qoysaskan ka tirsan qabiilka Tinka waxa inoo wehelin doona oo inoo sharaxi doona Maduud Miyawi oo ka mid ah qabiilkaasi ahna nin xoolo dhaqata ah oo beeraley ah. si u daaqin beeraha
haddaynu dib ugu noqonno shaqada gabadha guriga leh waxaa ka mid a diyaarinta cuntada waa in guriga lagu soo wada noqdaa iyadoo gabadhu cuntaysiinaysa carruurteedii oo xanaanaynaysa wax kasta oo cuntada la xidhiidha waa mas-uuliyadda gabadha haddii ay yaraato cuntada kaydka ah waa mas-uuliyadda ninka inuu raadiyo cunto cuntada ayuu raadinaya xitaa hadday tahay meel aada u fog midhaha beeraha ayaa cunto u ah dadka lo'dana waxaa la siiyaa balka iyo xashiishka kale sida buushaha haddii aanu dhib kala kulanno sidii aanu lo'da uga ilaalin lahayn inay galaan beeraha waxaa waajib ah inaan u hayaanno meel durugsan ninka ayaa midhuhu markay soo go'ayaan ka ilaaliya shimbiraha kuwaasi waa inta badan howlaha ninka iyo xaaskiisa gabadhu waa inay soo geysaa sabuulka iyo midhaha kale waayo waa shaqadeeda waxay geynaysaa daaradda guriga si aanu ugu farashto si ay ugu farashto oo ugu shaandhayso kadibna waxay ku cabbaynaysaa kiishashka si aniga oo ninkii aya aanu qaado oo ugu raseeyo meeshii loogu talagalay taasina waa dhaqamadayada haddaanu nahay qabiilka diinka Sejak aku nyi berkata dia yok ya banyak tadi saya udah tamur lagi Gue chặt kok, gue chặt kok. Cái gue dia jam madi ben, un riêng thì gue un ba, gue chơi điên thuốc cả madi, mà gue chặt, nala ben ya cả gue apus be ba parak bela tôi quý là nôn chi tiết, đong bài bela pur, đong cái gai ben, mà cái lô mày, din cái lô. waa waajib inaan si degdeg ah u lisno lo'da maxaa yeelay tuqsiga iyo durdaha ayaa si adag u dhibaateynaya lo'da xoololaydii kale way hayaameen innaguna waynu daahan
taa darteed waxaynu u baahannahay in aynu maanta u socdaallo meel cusub oo aynu lo'deena soo daajinno tani waa lo'dii irmaanayd ee guri joogta ahayd taasoo carruurta loo dhiso waana inaynu ka taxadarnaa inaynu lo'da geesaha ka garaacno caanaha waxaanu u lisaynaa carruurta yaryar kadib marka aanu maallo lo'da waxaanu u didinaynaa dhanka buuraha si aanu u awoodno inaannu si sahlan ugu xidhno samada haddase lo'da waanu daajinaynaa waa kan mar kale Mr. Maduut Miyaweyn oo inoo sharaxaya sida ay nolosha qoysku u xidhan tahay lo'da ay dhaqdaan qabiilkaasi diinka qof kasta oo qoyska ka mid ah waxaa loo gaar yeelaa sac ka mid ah lo'da guri joogta ah waxaanu haysanaa laba nooc oo lo'da ah waana lo'da ay yaryarku daaqi geeyaan iyo lo'da guri joogta ah oo la maalo lo'da guri joogta ah waxaa lisa haweenka marka ay gabadhu caanaha soo diyaariso waxay siinaysaa carruurta iyo ciddii kale ee guriga joogta taasi waa shaqada gabadha ee guriga dhexdiisa gabadhu waxay kaloo u xilsaaran tahay inay xilligaa diyaariso cuntada marka ay wax waliba dhammaadaan waxaanu mar kale isu diyaarinaynaa maalin cusub iyo shaqo hor leh markaynu eegno hooyaday oo ah carruurta ayeedeed shaqadeedu waa tarbiyadda carruurta iyo xanaanayntooda markaanu maqannahay ayeeyadu waxay ilaalisaa oo xanaanaysaa carruurta iyadoo ka digtoon in aanay ka fogaanin guriga agagaarkiisa waxaana suuragala inay ayeeyadu mararka qaarkood carruurta ka caawiso waxbeerashada dhankeedana hooyada dhashay Mr. Maduut ayaa xog waxa ay inaga siinaysaa shaqada iyo hawl maalmeedka islaanta ayeeyada ah ee qoyska ugu weyn waagii hore noloshu waxay ahayd mid wanaagsan laakiin xilligani noloshu waxay noqotay mid adag gaar ahaan islaan waayeelah oo gabowday sidayda oo kale xilligii hore ninkiina dhalay waxa yarad loo siin jiray tiro la isla ogyahay oo lo ah anigu waxaa layga guursaday 2 hablood oo aan dhalay oo mid ka mid ah isaygeedii u raacday dhul fog inantii labaadna way dhimatay waxayna